أن marka hore de Ilaahay baynu mahadnaqaynaa nicmooyinka faraha badan loo inasiiyay baynu ugu mahadnaqaynaa wax badan runtii ma jecel inaan idhaahdo meelo badan oo xasaasi ah oo dadku ay ka sasayaan way jiraan kuwa waan iska dhaafayaa oo halkooda ku dhaafayaa qodob quraan doonaya inaan isdul taago waxa weeyaan qodobka controlkan u dhaxeeya labada gobol ee Hawdi iyo Hargeysa kolley waxaa jira qoraallo la soo saaray oo wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay oo dadkuna ay aad uga qayliyeen runtii arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in si fiican looga fiirsado marka tallaabooyin noocaas oo kale la qaadayo maaha in meel keliya farta lagu fiiqo Hargeysa afarta koonabada waxay uga baahantay in xadkeedii yeelato caasimadda ugu horreyn waxaan soo jeedinayaa kolley in la sameeyo ama la ansixiyo xeerkii caasimadda kaasoo jaangoynaya goobta kantarooladu la dhigayo una fasaxaya kolley muwaadin kasta oo Somaliland u dhashay oo ku nool caasimadda inuu isu sharaxo golaha deegaanka ee caasimadda marka waxaan soo jeedinayaa in arrintaasi la adkeeyo oo xeerka la ansixiyo baarlamaanka muddo fara badan buu hor yaallay wuxuu taaganay ilaa imika lama sixi karo waxaan leeyahay xeerka la ansixiyo si kantaroolada magaalada uu noqoto caasimaddii dalkuna uu noqoto mid iyadu keligeed iskeedu taagan aanay una noqonin wax reera ku tartamayaane ay u noqoto wax Somaliland oo dhan ka dhaxayso oo Somaliland oo dhan ay ku tartamayso taasaan soo jeedin lahaa dadweynihii ka hadlayna waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay aad baa uga mahadsantihiin qaabkay uga hadasheen wanaagsanaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku boorinayaa inuu kolley halkuu digreeta kaga soo saari lahaa meel qudha inuu dhammaan u doodo kantaroolada magaalada afarteeda koona ah inuu u doodo oo taa uu dabagalo aad iyo aadna runtii waan u adkaynayaa arrinkaas sababtoo ah waxay keenaysaa dariiq wanaagsan bay furaysaa oo marka caasimaddu keligeed istaagto dariiq wanaagsan bay furaysaa in la wada leeyahay bay furaysaa in Somaliland ay ka dhaxaysay furaysaa halka imika reeruhu keligood ay iska qabqabsanayaan waxaa kaloo intaa raacinayaa kolley xeerar badan baa jira oo dalka laga sameeyey xeerka degmooyinka jira qaarna waa la soo qaatay qaarna waa laga tegey waxaan odhan lahaa ama isaga sidiisa loo dabaqo si maaragtay goob waliba ay sideeda u madax bannaanaato ama generally taa guud ee aan ka tilmaamayo ha la soo qaato yaan laga dhigin hawdna in yaroo gaar ah oo gobolahoo meel taalla degmooyin aan magaranaysaa meel la ku tiirsanayna la yidhaahdo Hargeysa ka tirsan yihiin oo codadkooda Hargeysa soo gelayaan taas runtii waxay keenaysaa cadaalad darray keenaysaa mar walbana cadaalad darradaasi way ku dhacdaa dadka deegaanka hawd degan waxaan leenahay arrintaa ha laga fiirsado hana la adkeeyo qodobka aan soo jeediyey ah ansixinta xadka caasimadda raacinaya runtii waxa weeyaan waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo barnaamij aad u qurux badan ka jeediyey deegaanka Lanqeyrta oo leeyahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa waxqabadka aad muujisay iyo horumarka aad magaranaysaa ballanqaadyada aad u samaysay aad baan kugu hambalyeynayaa